iyo farxad iyo walaalnimo iyo Soomaalnimo iyo saaxiibtinimo iyo waxaanu isu ahayn sababtoo ah wiilku Aamina kama dhiman waa naga wada dhintay janna fartawsa Ilaahay Aamina waa dhashay kana waa dhashay anna kana waa dhalay kan xirana waa dhalay kan intana waa dhalay runtii waa ka aad iyo aad adiga u maasantay walaashay sida mataqaanaa ugu dhiirigto mataqaanaa inay ii soo istaagtay ayaa anigana mataqaanaa ii sheegay wiilkay samatar caf iyo saamax iyo dhiigkiisii waan cafinay kulanti wanaagsan oo wacan meel kastoo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijkan kooban oo aanu ku eegi doono haddii allaha yidhaahdo arrin aad iyo aad u foolxun oo ka dhacday galbeedka magaalada London oo galaafatay nin dhalinyaro ah naftiisa oo la oran jiray Xasan Suufi Cusmaan Cabdilaahi oo 23 jir da'diisu ay ku dhaweyd ayaa 23kii bishii sagaalaad ee 2019 lagu dilay magaalada London. dhacdadaas siday u dhacday foosha xun ayaa waxaan ka waraystay hooyadii dhashay iyo weliba hooyadii wiilka wax dilay dhashay oo ayadu igaga waramaysa siday arrimahan u ogaadeen iyo saameynta ay noloshooda ku yeesheen. waa markii ugu horeysay ee hooyooyinkaanu ay kulmaan ayagoo ku kulmay dhibaatada labadoodaba soo gaartay iyo sidii loo badbaadin lahaa da'yarta kale ee magaalada London iyo dunida daafeeda isku leynaysa. haddaba marka hore waxa ii suurta gashay inaan la kulmo Xaawo Taako oo ah iyadu hooyo Soomaaliyeed oo dhashay wiil yiraahdo magaciisa Samantar oo iminka xiran maxkamadna sugaya ahna wiilka loo haysto inuu dilay Xasan Yare. waxaana wax ka weydiinaya haddii Ilaahay yiraahdo siday marka hore ku ogaatay dhibaatadan dhacday iyo xaaladdu siday tahay. waxa wax lagu farxaa oo idin soo hormarinayaa in ay Xaawo booliiska ay ku dacweysay si wiilkeeda loo xiro maadaama uu dhiig Soomaaliyeed gacantiisa uu ku daadiyay. waa qiso cajaa'ib leh oo hore iyadoo kale aysan u dhicinin. Xaawo waxay ka mid ahaan jirtay marka hore ciidamadii hore ee qaranka Soomaaliya laba xidigle ayay ka ahaan jirtay ciidanka qaranka Soomaaliya militariga markii dambena waxay ku biirtay booliiska Soomaaliya bari samaadkii. Xaawo waxaan kaaga mahadcelinayaa inaad naga aqbashay inaad nala hadashid iyo aad nooga warantid wixii dhacay xilli ay weliba aaskii weli uusan dhicinin maxkamaddii aysan dhicinin waxyaalo fara badan annagoo xiirinayna bal waxaad iiga warantaa marka hore wiilkaaga yar qofka uu ahaa Samatar. walaal Samatar wuxuu ahaa markiisii hore runta markaan kuu sheego wiil aad iyo aad u wanaagsan. waxaan ku soo koriyay agoonimaan ku soo koriyay 10 sano aan u dacwoonayay Itoobiya joogeen teenkii bay soo galeen kuleejku bilaabay markuu bilaabay footballkii buu bilaabay markuu bilaabay isagoo footballkii ciyaaraya ayuu muxuu ahaayay haddana masaajidkana uu ku xiraa maadan buu ka ahaan jiray. nin sidaasuu ahaa nin akhlaaq wanaagsan buu ahaa nin Soomaalinimadoo dhan isugu mid tahay buu ahaa runta markaan kuu sheego nin wallaahi markii dadku arko meel salaan uga soo jeensada oo uusan Soomaali kala aqoon oo abti iyo habar yar iyo eedo iyo hooyo dhaha oo madaxa ka dhukanay 21 sano jir buu ahaa hadda 21 sano galay. marka wiilka akhlaaqda leh buu ahaa. marka uu soo wacay Mondaydii wuxuu yiri hooyay dib baa dhacday Mondaydii 23kii bisha markii dilku dhacay December uu soo wacay markaasaan waxaan ku maxaa dhacay wuxuu hooyay arrintaas dhacday arrintu ma dhacday waxaan ku iri waan aad baan u naxay markuu yiri arrintaas dhacday marka codkiisa sidoo ahaa hadalkiisa sidoo ahaa arrinta dhacday oo kala hadlayna samxay wallaahi codkiisu waxa weeye uu xumaa oo wuxuu ku xumaa kolley meel wuxuu ku jiray buuqa markaan runta kuu sheego marka wuxuu hooyay waxa dhacay wiil Soomaaliyeed ay Soomaali ma oran wuxuu yiri hooyay nin baa xalay soo handaday markuu inta ii sheegay baan waxaan ku iri yuu ahaa Soomaali buu ahaa waxaan ku iri Soomaali baa saas yeeshay saldhiga iskay baan ku iri inta socoto saldhiga iskay marka dhibkan uu geystay mid ku sheegay dhibta waana geystay hadaladiisii maxaa kamid ah xasuusata sidoo yiraahdo inta waxaan hayna ma oran
kelmad kale iguma darin nin baa midi ku dhuftay ha kelmad kale iguma darin waa gartay waxaan ku yiri hadday saa tahay oo maanta aad Soomaali u soo dhigatay orod saldhiga iskay waa gartay wuu iga aamus markuu iga aamusay hadal uu kaa filinaya ma Soomaali ha igama filayn markaasaan waxaan ku raadaadan saldhiga iskayn anaa saldhiga ku keenay hooyo ma xiraysaa waa ku xirayaa baan bas go'aan baan qaatay marka waa soo tagay gabaraan saaxiibnaha inta soo raacnay waxaan ku iray baabuurka markaan soo raacnay Faaduma amar baa dhacay maxaa dhacay wiilkii Samatar ahaa ila soo hadlay saas u yiri waana xirayaa waxay tiri arma wiilka la haysto wallahi ama hal la haysto ama yaan la haysan baa ku ir waa geenayaa saldhiga toos baan u geenayaa khayr badan Allah ku siiyo baytir ikaxay shaqaan u socday shaqadii ma aadin alaabtii baan iska dhigay toos baan saldhiga u tagay saldhiga markaan u tagay xataa waan ku rafaadnay saddexdii bay nagu noqotay waana la hadli waayay fayl bay ahayd saan u sugeynay markii dambe ayaa waxaan aragnay meesha laga waco 115 dibadaan u baxnay baabuurka iyaga baan ka wacay aan ku jiray arrintan taa markaas inay la soo kala carareen gudahayna galiyeen sidaasaan bixiyay booliska u yarteen booliska u yar xilligaas marka xagee u joogaa Samatar aad u siiyayso meel u joogo maqan waa gartay meel u joogo waa telefoon buu la hadlay aniga weli sidii aniga waxa igu dambeysay Samatar sabtidii baa igu dambeysay xataa axadii ma aan arag sidii baan u geeyay maxaa kugu kalifay bay dhaheen waxa igu kalifay baan ku yiri mar rabo ilmahaygu inuu dad dulmiyo isagana in la dulmiyo mar rabo waxaan ahay ciidamadii Soomaaliyeed baan ahay waxba iskama qarin dambiga waa laga carra islaam baan nahay islaantinimadu waxay faraysaa qofkii dhiig gala in dhiiggiisa la marsiiyo sidaasaan wiilkay ku dhiibay anigu marka markii dambe oo aanan ogeyn Soomaalinimo way taas ogow markii dambe xilli dambe ay tahay annagoo baabuurka ku jira oo u socona mana harsan ilaa la xiray aan u socono meeshaan deganaa ayaa waxa la yiri Aamina dhashay wiilka Aaminana waxay ahayd runtii gabdhaha Soomaaliyeed gabadha aan ugu jeclay oo walaashay ahayd oo igu qaali ahayd waxay igu noqotay murug labaad wallahi intii aan arkayay walaashay maan arag weligay dhibaato kama arag gabadha weligeed naag Soomaalinimada ku ordaysa bay ahayd nafteeda iyo maalkeeda u hordhay Soomaaliya aniguna sidoo kale ahaa sidaasaan wiilkayga ku dhiibay anagu ugu wareejiyay ciidamada waa gartay wiilkaaga ciidamada ku wareejisay booliska way yimaadeen waa la xiray ninkii xabsiga ku jira wuxuu sugayaa maxkamad arrin aad iyo aad u dhib badan weeye ilma adigu aad dhashay waalidkuunu dhiibo boolisku dhiibo markaad dib u eegtid waxa ugu weynaa go'aanka aad ku qaadatay inaad ninkaa boolisku u dhiibto jiraada hal la xiro dambigaasu galay maxay ahayd baad isleedahay oo qalbigaaga ka soo go'ay qalbigayga waxa ka soo go'ay maanta hadduu wax sameeyo berrina waa samaynayaa tan ugu weyn weeye runta markaan kuu sheego waa tan ugu weyn tan kale ilaahay rabbigiisaan tala saarsaday waxaan ku tala saarsaday haddii hooyo walbi saa samayn lahayd ama aabbo walbi saa samayn lahaa dhiig ma dhaceen qof lama dileen ilmaheenu waa seef garoobi lahayn inagu waa seef garoobi lahayn Soomaaliya ka dhacdaa 24 saac Soomaaliya ka dhacaysa qofkii qof dilay waa la sii deynayaa berri buu shan kala dilayaa marka waa xaq darro wadankeena ka jirta haddaynan istaba qabanna waa soconaysaa marka waxaan go'aanka u gaaray inaan istaba qabanno oo hooyo kasta saa yeesho oo aabba kasta saa yeelo waa gartay waxaan ogahay hadda inaad u socotid aad aadaysid gurigii Aamina markii ugu horeysay aad la kulmaysid maxaad ka rajaynaysaa inaad Aamina kala kulanto Aamina waxaan ka rajaynayaa wanaag iyo farxad iyo walaalnimo iyo Soomaalinimo iyo saaxiibtinimo iyo waxaan isu ahayn sababtoo ah wiilku Aamina kama dhiman waa naga wada dhintay janna firdawsi Allah geeyo Aamina waa dhashay kana waa dhashay kana waa dhashay anna kana waa dhalay kana waa dhalay kaan xirena waa dhalay kan intana waa dhalay marka waxaan ka rajaynayaa inaan wanaag iyo walaalnimo iyo xubbi iyo sidaan wiilka iyaga aan ugu tacsiidayo wiilka iga dhintay ayaan ugu tagayaa caruurtii uu la dhashay iyo hooyadiis waxaan ogahay hadda inaad doonaysid inaad aadid gurigii Aamina markii ugu horeysay maxaad ka rajaynaysaa Aamina inaad kala kulantid maxaase kugu dhaliyay inaad intaan aasku dhicin inaad u tagtid bilowgii horeba aad la kulanto oo la fariistay markii ugu horeysay waxa igu dhaliyay inaan la kulmo ana iga soo go'day waxay iga soo go'day
wiilku waa naga wada dhintay sidaa inaan walaashay ugu tago oo aan kulano ayaan u soo aaday oo ku soo aaday oo ku talagalay inaan aado raalli ma ka tahay inaan ka duubno oo ku raacno kulankiinaas hore aan soo duubno annagoo aan isleenahay si dadka Soomaaliyeed loo tuso in maaragtay aan isku timaadeen dhibaatada dhacdayna labadiina waa ka wada daqranaysaa ma noo ogolaanaysaa wadaadsan raalli baan ka waa hagaag ina keena walaal aamino tacsibaan kuugu imi inka wada dhintay wiilku janna firdawsi Allah geeyo ilaahay jannada ka waraabiyo samiri iimaan Allah ina ka siiyo socodkayga hadda soo gaaray inaan ku imaado ka hor baan ku iman lahaa marka walaalay waxaan ku qalbigan ku soo siin waayay sababtoo inta ooyay anna waa ooyayay kan xiran iyo kan dhintana wayna ka dhintay kan xirana waa xiran yahay kan kalena waa ina ka dhintay janna firdawsi Allah geeyo adigana cafis ka barnay walaalay gacalis ilaa caruurtu waa wada dhashay waa wada aasanayna garabkaagaan nahay gaashaankaagaan nahay waxba ka hakran mayno walaal waa ku garab taaganahay waa ku dhinac taaganahay walaal aada u mahadsan tahay waa ka ajiib waa mataqaanaa ii sheeg anagoo dhan naga wada dhinto waa runtaa runtii aad iyo aad u faraxsanaynaa ii imaadid waxaan rabnaa anagoo mataqaanaa gabdhaha Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan adduunyada dhan mataqaanaa dunida misay u dhan tahay qoys Soomaali meel walba joogto mataqaanaa waa dhibaataysan tahay waa dareemi karaa maanta waxaan filayaa xanuunka ani ahay adiga ku hay inuu adiga kaaga inuu xanuun badan yahay walaali macaani ari arintan mataqaanaa isheeg horta runtii aad ugu maasan tahay saa ugu dhiiratay oo mataqaanaa adiga hadda ii soo ijaabtay oodan filaynin talo maxaa kaaga imaan doona maxabada lagu haystaa mididii mataqaanaa laga arsanaya oo qalbisimada ay ugu imaadeen kaaga ajiibnay cafiskaana anaga mataqaanaa ma aha mid hadda oo gurigeyga muxuu ahaa sheekay aan cafiska aniga ku cafinay ma ahan anoo aad soo marayo oo Soomaaliya markaa ka soo baxay maadaama aan ka shaqeeyo arrimaha haweenka iyo dhalinyarada iyo mataqaanaa human rights ka ah waxaan ugu soo batay dhibaatooyinkan aniga wiilkayga Xasan Dhiiggiisa waxaan ku soo cafiyay anoo joogo dalkayga hooyo Soomaaliya marka Itoobiya imid xoogaa shucuurteeda wixii mataqaanaa isbedeleen waa la socotaa mataqaanaa media waa aragtay anoo waalna iyo video iska duubay oo mataqaanaa adduunka dhan laga wada daawaday waa waalna because ma sugaynin mataqaanaa ii sheeg argagax ay ugu noqotay runtii waa ka aad iyo aad adiga u mahadsantahay walaashay sida mataqaanaa ugu dhiirto mataqaanaa inay ii soo hor istaagtid ayaa anigana mataqaanaa ii sheeg wiilkayga Samatar cafi iyo masaamax wuxuu iga yahay dhiiggiisii waan cafinay biidnillaahi kariim mataqaanaa gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan rabaa sida hooyo xaawo oo kale inay ugu dhiiradaan aysan mataqaanaa ilmahooda intay dambiye galaan aysan mataqaanaa dhoofinin aysan qarsanin dhibtu waxay noogu yaraanaysaa sida xaawo sameysay markay gabar walba hooyo walba Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay ku dhiirato in mataqaanaa maadaama uu ilmaheeda ogtahay inuu dambi galay ee cafis ay weydiiso sida xaawo oo kale because saana imaanaysaa aad u mahadsan tahay Xasan waa naga wada dhintay Samatar waa naga wada xiran yahay waxaan rabnaa mataqaanaa in gabdhaha Soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogaana inay nagu daydaan aadaan u mahadsantahay waa idin duceynaya ilaahay rabbiga raxmaan makhshir iyo makhrib Soomaalidu joogto dhan aayad inay u noqoto Allah ka dhigo jidkaad marteen kuwii wada mar Allah ka dhigo awlaad islaamka Allah ku badbaadiyo ilaahay taasaan ka baryana alxamdulilaahi rabbil caalamiin alxamdulillah ilaaha ma hadaas iskaal ilaah isku keenay sharaftii wanaaga aad ku timado wiilkaada aad ku dhiibtay calool hooyo geesinimadaas le maanta ma jirto laakiin Allah ku siiyay adiga aaminada doorkeeda waa ciyaartay afisay fidisay say Soomaali kale ugu daydaan marka waxaan idin rajaynaa ilaahay rabbiga raxmaan ha ka dhigo
تي صومالي هرسات النقطة ومن داس إلهي نوقدقه ربي الرحمن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أدعوك أسماءك الحسنى وصفاتك العليا إذا سئلت أعطيت يا رب أنت الرحمن الرحيم إلهي ربي الرحمن أسماء الله سقاش إسقالك إلهي عن برينا ربي الرحمن كبرينا من لا كسفه هذه معنى هذا إلهي نصيه رحمة نوقسو دكتورك ونحريص بدن أهو إلهي نوض في صومال جود وأنسى أنه الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد بما خلقتني ورزقتني وهديتني وعلمتني وأنطقتني وفرجت عني لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافية اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء من بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا عبيدك اللهم لا مال لما عطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغالغ الباري المسور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير العديم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المقصد المبدع المعد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد السمد الغادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الطاهر الباطل الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذا الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني مانع النار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا حنان يا منا برحمتك نستغيث يا مقيث بلاء الدنيا يا رب يا مقيث أقثنا بلاء الدنيا يا مقيث أقثنا بلاء الدنيا إلهي بقيني برعتها سمر يا رب غير رحمانها كاسنا مرتل جعليها الله كألقه كان حرانه إلهي قلبي ساسي قعمي سوقت قدومان إلهي قلبي ثبت قلوبه على الدين والتقوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين haatan waxaanu soo gaarnay gurigii uu ka geeriyooday marxuumka waxaana noo suurta gashay in aanu fursad u helno ilaahay fadligiis aamina maxamed mursal oo dhashay hooyadii dhashay ah marxuumka inaan su'aalo weydiino aamina waa qof macruuf ah Soomaalida dhan ay taqaano aan u baahnayn xaqiiqatan in Soomaalida la baro dawladihii Soomaaliya ay shaqooyin kala duwan ka soo qabatay dawladda Cabdullaahi Yuusuf wasiir bay ka ahayd xildhibaan bay ka ahayd la taliyaha ra'iisul wasaare ay soo noqotay haatan waa la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed dhinaca xuquuqda dumarka iyo guud ahaan xuquuqul insaanka waxaan jecelnahay inaanu ka weydiino xaaladan foosho xun oo dhacday isay u dhacday iyo waxay ka ogtahay iyo waliba waxa ku kalifay labadeedii wiilo ugu yaraa oo mataanaha mid ka mid ah in maaragtay tacsidiisii aan u fadhino aamina walaalay marka hore waxaad iga guddoontaa inaan kaaga tacsiyo dhibaatada kugu dhacday qoyskaaga oo dhan ku dhacday annaga oo ku hadlay magaca TV-ga Universal oo kaaga tacsiinaa dhibaatada ninka yar dhalinyarada ku dhacday iyo dhibka idin soo wada gaaray bal marka hore waxaad iiga warantaa waa annaga aragnay fiidiyoyaal social media ku jiray سيد أقوى هالشيء جيري الحسن هذا ما سنت عبد الحافظ رنتي يونيفرسال تي في آدي أنا كم هذا علينا يا وحن آدي أدسو دوينا مرور بالدباتوين كصومالي سأقول سعودت أدي قال أنا عبد الحافظ مدنا أوجرس منطقنا ضدك أنا ضد قالوا حاجة عدكود أنا لمغلي كرين عدكود أنا منطقنا أجرست هدين نقلنا الدولة UK هدين نقلنا الدولة الصومال أنا كم هذا علينا يا إنا لله وإنا عليه راجعون runtii 23 ayaa aloortii waxaa isoo wacday gabadhayda alxamdulilah alshukrulah maalintaas maalin oo mataqaanaa iiga xun nolosha ima soo marin because habeennimadii dhan wiilkayga ayaan raadinaya aniga waxaan ku raadinaya telefoon habeen walba ismaqli jirnay asagii mataankiisiba waa waayay alxamdulilah hataa walaalkiisaan wacay marka gabadha isoo wacday gabadhaydii markaasaa meel igu dambeeyay aniga hataa waxaa ilooba hataa inuu wiilka ilaahay leeyahay aniga aan lahayn oo ilaahay isii haddana asagoo cishan kara hataa waa iloobay aad iyo aad aan u naxay waad la socotaan mataqaana social media anoo video waalan oo mataqaana meeshaan joogi meel kale aan ka seeno oo hataa luuqooyinka aan ku hadlaya aan kala ogeyn ayaan duubay because waa dareemi kartaa xanuunka ay leeyihiin mataqaana aniga wuxuu ahaa xasan wuxuu ahaa mataan buu ahaa
weliba waa yaraankeyga waay marka runtii markaan sidii maxaan kaga soo ambabaxay magaalada muqdisho Addis Ababa waxaan ku ahaa transit saacado markaan jooga Addis Ababa ayaa qulubteeda waxay anoo weli taqanadan soo aadin ayaa Ilaahay subxaanahu qaadirka qulubteeda mataqaanaa wuxuu markiiba i tusay dhibaatooyinka haysta gabdhaha Soomaaliyeed hadday North America joogi lahaayeen hadday Yurubtan kale ay tahay hadduu Ingiriis u yahay marka maalin walba mataqaanaa oohinta mataqaanaa ii sheeg guryaha hooyinka Soomaaliyeed oo maalin walba ilmadoodii mataqaanaa da'ayso oo caruurtoodii ka warqabin oo caruurtii aan maqlayn waxaan go'aansaday maadaama wax badan aan ka soo shaqeeyo mataqaanaa sidii Soomaaliya mataqaanaa ilmaha Soomaaliyeed ama Soomaaliya oo dhan bas ay cagteeda ugu istaagi lahayd waxaan go'aansaday inaan muujiyo waxyaabihii aan ku dhaqmi jirnay oo ahayd in hooyo wiilkeedii dambi galay wax dilay inay mataqaanaa wiilkeyga muxuu ahay shay iska dhoof ee dhoofiso in hooyo wiilkeedii ogtahay inuu xabsi ku jiro ay dhahdo jaamacad China u diray maxaa lagu bedeli karaa cabdiyo marka runtii waxaan go'aansaday inaan cafis aan fidiyo anoo intii qabo arkaysa maanta alxamdulilah alshukrulah walaashay xaawa oo mataqaanaa ii sheeg xaawa taako oo runtii gabar caan ah oo Soomaalida mataqaanaa si fiican u taqaano ayaa mataqaanaa ii imaaday anna horaaba u go'aansaday inaan cafiyo marka runtii sidaas ayaa mataqaanaa ii sheeg yaa u go'aansaday waxa koos gareeyay dhan mataqaanaa ii sheeg dhibaatadan oo haddaan isleeyahay leeyahay way nagu soo naqnaqatayna waa dareemaysaa mataqaanaa wadankan safaarad ma lahan 1 milyan waa ku joognaa ilaahay idinkiisa mataqaanaa waxaan rabaa xasan wuxuu ahaa nin baari iyo ahaa xasan wuxuu ahaa nin si fiican wax u bartay xasan wuxuu ahaa nin iskuul ku fiican oo ahaa xasan wuxuu higsanayay inuu wadankiisa Soomaaliyeed inuu mataqaanaa ii sheeg wax ka qabto oo weliba wuxuu rabay xasan inuu noqdo police officer ayuu rabay inuu noqdo hatta wuxuu la kulmay madaxweynihii Soomaaliya ayuu la kulmay wuxuu la kulmay ra'iisul wasaarihi ayuu la kulmay ma ahayn nin raba inuu mataqaanaa wadan ay halkaan mataqaanaa ama drug ku iibiyo ama muxuu ahaa ishag ama meelaha qaarkood ama istaaga ama midiya qaata ma ahayn xasan saa ula socota xasan hatta markii mataqaanaa shirka uu dhacay wiilkay waa farmarnaa midi ma uusan wadin min maqli laakiin ilaahay sababtiisa mataqaanaa wiilkii yarka ah walaalkiisa ahaa oo ilaahay ku sabay ayaa midida watay laakiin xasan wuxuu ahaa nin dariiq fiican oo mataqaanaa lagu dayan karo oo runtii mataqaanaa doomino xamar ka soo samaystay mataqaanaa ishag barbiere oo la yiraahdo afro secret iyo xamarka uu ka soo furay wuxuu u soo socday nin wuxuu rabay inuu wadankiisa mataqaanaa wax ka dhiso Soomaaliya ayuu rabay hatta even mataqaanaa waxay ahayd inuu sanadkan university inuu aaday ahayd wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan jaamacadan ka dhigto mataqaanaa Soomaaliya marka nin Soomaalinimada ay ku badan tahay anigana aan hadeer mataqaanaa caalamka intii maqlaysa oo u sheegay xasan inuu yahay saqiir yar oo dhintay oo mataqaanaa baari ayuu yahaa walaalihiis mataqaanaa aaday u jeclaayeen aad uu loo soo dhaweynay ilaahay hadeer gabadheeda ladan cabdi jaamac irintii kama aysan dhamaanin marka alxamdulilah alshukrulah waxaan go'aansanay waxaan qaadanay marka arag dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed ay haysato marka arag mataqaanaa hooyooyinka Soomaaliyeed mataqaanaa si ay u dandareesihiin marka aragnay guri walba mataqaanaa oohin ay mataqaanaa laga wada ooynayo sidii ayaan dhigay aan ku cafiyay waxaan rajaynayaa mataqaanaa idinkana aan idinka codsanayaa inaad garab iyo gaashaan igu naqataan inaan wax ka bedelno dhibaatooyinka London lagu soo laalaabtay dhibaatooyinka North America ka jiro dhibaatooyinka mataqaanaa Soomaali meel walba ay joogto oo ilmahan mataqaanaa midi ku taag ah waad arkaysaa cabdiyo mataqaanaa caruurteena waxay wataan saaf ay wataan waxaas anaga dhaqan uma lahaan jirin anaga miyuuna ka fikirin marka marka waxaan go'aansaday ma ahan mataqaanaa ii sheegay cunugeyga wiliba aad uu ku laa aniga because baarigaygu ahaa waxa dhigay wiilkayga uu afiyay oo haddana aan raba inaan uu afiyo ilaa meesha u dambaysa aan la soo istaaga cafiskiisii ayna iga ahayn mataqaanaa mid idaacada oo kaliya aan u sheegay midaan mataqaanaa ii sheeg dhalantada aysan iga ahayn oo iga tahay si diib la iga tahay waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan dhiigooda aan ku badbaadiyo waxaan ilaahay subxaanahu qaadirka ka baryayaa in ay noqoto arrinta mataqaanaa dhiigga wiilkayga xasan mataqaanaa waa reer Sheekh Suufi waay waxaan la socotaa aniga koonfur galbeed ka imid xasan Sheekh Suufi waay anaga sidoo dhiig maba qaadanaba waxaan lagu dhalay faatixaan qaadanay laakiin ujeedkaygu waxay tahay aniga in mataqaanaa Soomaalidan oo anaga mataqaanaa aan saldhigi weyn in mataqaanaa ay noqoto mid ay mataqaanaa gabdhaha Soomaaliyeed ay ku daydaan
waxaad go-aansatay inaad cafisid hooyadii wiilkeeda uu wax dilay inay iyadu wiilkeedii booliis u dhiibto cafiskan qayb intee la-eg bay ka tahay والله وادريم كرتا رنتي متقانا أنا وحيابها سيدير جري كمتاي حاو because حاو متقانا وحي كديرتي متقانا وحا قبلها سوماليد أيسن سمين ولي قد حاو وحي كديرتي متقانا إيش أنا عاد وحا إنه مركي عروتين وحا أي سميان أما متقانا قف يسود ديران أما متقانا بحكمة أولية هاي إنه إلمي ودنك اللغسارة أي سومال بدنا تاسع عادي وأهيد بركنتي حاو إلهي خير هسيو وحي مضنطهي إن القضيضة وحانا فيلايا قبلها سوماليد meel walba caalamka ay ka joogaan in ay mataqaana arintan ay tusaale u noqoto in lagu daydo marka aan ku leeyahay mataqaana waxaan rabaa inaan ka yarbaxo hooya mataqaana ilmaheedii oo drugs qaadanayo waxay awood mataqaana u yeelatay in ay TV-ga soo fariisato oo ay hadasho oo ilaa mataqaana wiilkayga daroow qaadanay daroogada ana soo iibi alxamdulillaah alshukrullaah hadda mataqaana way fiican yahay laakiin ka war mataqaana maajiga ay cabdiyo in hooyo mataqaana lacag intay ka bixiso wiilkeedii oo mataqaana drug waa kana hooyo cab herkaas gabdhaha Soomaaliyeed marayaan markuu ascafinayna biinilaahi kariim mataqaana hawshan waxaan rabaa inay si balaarato waxaan ka codsanayaa mataqaana gabdhaha daafaha caalamka ku nool especially North America kuwa islaam jabka iska soo duubaya iyagoo walaalahooda dilayaan inay ka waantowaan waxaan filayaa mataqaana gabdhaha Soomaaliyeed kama fiicni mataqaana ku malaayina iga sii fiican laakiin waxaan filayaa mataqaana in ay ogaadaan ay arkaan ma arkaysa in maanta dhiigayga mataqaana wiilkay sida loo dilay adduunka dhan bay mataqaana daasan tahay waxa awoodaas waxa Ilaahay subxaan qaadirka kowisi waxaan ku dhiirida mataqaana si aan u badbaadiyo ciyaalka Soomaaliyeed iyo ku ari aan dhalay iyo ku ayadu ahay iyo Soomaaliyo dhanba ayaan ku cafiyay dhiig xasan cafiskan maxaad leedahay ummadda Soomaaliyeed way ka baranaysaa ama uu ka turjumayaa عفسك وعشر وا عفسك وحوا دكسي وحلا قبرت وا because نبتة وينقصوا نقطي وهذا أركيس منطقة أنا مرة بينا أرمها أنقلوا منطقة بوليس إنجليزكا لكن هالكلام منطقة أنا وضد كان حقصوا الدولة نبت قرية يا قصوا الدولة وضد كان وحقصوا عرني وضد كان واحد هذا حبض يقح يدباتو يجاجو يأرد والله situation مركان فيديو قار مركان فيرسلو ما أنتم حاسلين منطقة UK يمحوها يشيء Somali من لبط هيبة because Somali problem واكجرا شباب واكجرا قرح واكجرا لكن اللي يوم منطقة سيف مدي وقته أو طريقة صبر يسملها كنت بقى كان وحباس كبدل منطقة ودك إنجليز كا Somali أنا ما تتقالها دولة إنجليز كا يكون ترسلها ولو أرمها بوليس نكعاوية هل كانوا مركز حالة دوحة مريسة إنسان ترى لندن منطقة هركي منطقة ويلي الميرو جان وطة الميرو توري وطة إنا إسكو برسزان marka anu hash maanka gaday masaar bay laqada iga taagan tahay waa yaabana dawladda Ingiriiska anaga waxaan ku sigeynaa xaaladda meesha ay marayso marka runtii mataqaana marrab inaan ku sii fogaado wax badan oo mataqaana aan ku soo koobi karin in University TV Cabdixaafid intay soo fariistaan aan ka hadlo mataqaana arrimaha oo maanta yaal UK ama Soomaaliya oo haystaba halkan kuma soo koobi karno waxaan rabaa marka aniga barnaamijka inaan weynino waxaan rabaa barnaamijkan midda Bristol joogtay iyo midda Manchester joogtay UK mataqaana si u dhantahay inay nagala soo qayb galaan waliba mataqaana isha waxaan rabnaa muxuu ahaa isha maayarka inuu nagala soo qayb galo maayarka mataqaana waxaan rabaa barnaamijka inuu kaga faa'iideysto oo ay soo gaarto fariintiisii dhaqsiin rabaa inuu ii arko waxaan rajeynayaa mataqaana codsigeena wuxuu yahay inuu nagala soo qayb galo xafladaas weyn halkaas mataqaana arnaa inaan mataqaana dhameystirkii ugu weynaa odayaasheena mataqaana ka soo qayb gali doonaan culimo diinka mataqaana ugu baaqaya hooyooyinka ugu baaqaya waxaan kaloo rabaa inaan ka codsado hooyo walba mataqaana sidee oo kale dhibano ah oo wiilkeedii mataqaana ay sugaysay mataqaana inay anfac ay ka hesho inay adeegsato inay ubadkiisa aragto aqara loo diray inay sawiradiisa ay la imaadaan habeenkaas nagala soo qayb gala barnaamijkaas waxaan rabaa marka fursadan oo University TV maanta isiisay ama caawo isiisay inaan kaga faa'iideysto inaan la hadlo dawladeeda mataqaana ama xukuumadeeda aan ka tirsanahay runtii mataqaana dhibaatooyinkan waa nagu soo laalaabteen halkan ma wuxuu ahaa ii sheeg waxaan rabaa inaan ka codsado madaxweyne Farmaajo iyo mataqaana ra'iisul wasaare Khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda iyo labada aqal waxaan rabaa inaan ka codsado inay focuska aysan mataqaana ii sheeg dadkan oo diaspora ku nool
oo especially inay focuska ay siiyaan North America iyo mataqaana UK laakiin ma aha mataqaana in maanta oo dhan mataqaana Cali Gardaran iyo Xuseen noocaas inay ku mashquulaan ma aha waa inay focuskooda siiyaan halkan waxaa degan 1 milyan waa ku dhowna Soomaali ah marka ma aqaan meelan u carna malihin safaarad ma haysano marka arrimahaas horena waa u sheegay waxaan ka codsanayaa mataqaana maadaama dawladeena ay hana qaaday oo dawladeena iyo xukuumadeena hadda si fiican u shaqeynayaan bal focuskooda inay soo siiyaan mataqaana ii sheegay waxyaabaha ka jira halkan oo safaaradaha mataqaana sida safiirka Ingiriiska ah safiirka Norwich-ka ah safaaradaha halkaas laga xisaabtamo ay la socdaan mataqaana dadkooda oo muxuu ahaa jaaliyadahooda waxa ay ku nool yihiin ee mataqaana dad adagna ay u soo magacaawdan ka codsanaya mataqaana dawladda ee federaalka oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafidullaahi madaxweynaha uu ka yahay waa hagaag aamino waxaan ogahay inaad ku jirtaan qabanqaabadii aaska marxuumka Allah u naxariistay goormu aasku dhacaya xageesa janaasada lagu tukanaya inna ilaahi raajicuun runtii aask wuxuu dhacayaa maalinta 12 bisha Oktoobar waxayna masaajidka mataqaana Edmonton ayaa janaasada la keenayaa kooda duhurnimo marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan UK waxaan rabaa inay nagala soo qayb galaan maalinta Sabtiga ayaan ka dhignay maadaama mataqaana maanta ayaan la siimeedkii waa iska ogtahay halkan mataqaana xoogaa markii oo saas kale dhibaatadaas u kale dhacdo muddo ayay haystaan anagoo marka arrin inaan u faa'iideyno maadaama dad badan aan ku leeyahay halkan iyo macal community-gi waxaan uga dhignay weekendiga inay nagala soo qayb galaan community-yaasha oo dhan oo adiga ugu horreysay Cabdixaafid aamino gabagabadii ayaan ku jirnaa barnaamijka waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo waxaan ogahay aaska kadib inaad qabanqaabinaysaan kulan weyn oo jaaliyadu ay darawal ka tahay oo wadatashi ah sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan foosha xun ee da'yarta Soomaaliyeed ay kala kulmayaan wadooyinka magaalada London iyo sidii wax looga baran lahaa cafiskan adigu aad walaasha u fidisay iyo wiilkeena wax dilay in ayadu ku timid oo laftigeeduna wiilkeena booliisku dhiibtay maxaad is leedahay barnaamijkaas uu daaran yahay nuxurkiisa runtii barnaamijka wuxuu xambaarsan yahay nabadgelyo ayuu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay mataqaana ku dayasho xambaarsan yahay wuxuu dhiirigelinayaa mataqaana hooyooyinka Soomaaliyeed ayuu dhiirigelinayaa waxaan filayaa mataqaana barnaamijkaas kulankaas maadaama ay isku imaanayaan jaaliyadaha booliiska maayirka waxaan rabnaa mataqaana ii sheegay inay wax isbedela inaan muujino waxaan kaloo rabaa inaan baaq la yaqaano baaq hooyanimo oo raba inaan tuso dhalinyarada Soomaaliyeed waad arkaysaa inta dhiigeena aad daadiseen ayaan haddana cafisa idinku dareynaa marka hooyo macaan waxaan kaa codsanayaa hooyadaana ha dilin adigana xabsi madow ha aadin anigana ilan ha iga keenin maanta waxaan ogahay mataqaana xanuunka ana ahee iyo kan xaaw badan yahay ana ilaahay subxaana qaadirka waa i dhaafiyey xasan sabtiga ayaa mataqaana la aasaya laakiin xaaw mataqaana kama tirmayso marka hooyo macaan naga dhiga mindiyaha ilaahay usoo laabta wadankiina mataqaana waa hirgelay Soomaali waa istaagtay shidaalkiyaa la helay yaa mataqaana petroolkiyaa la helay war waxaasoo dhan yaa cunay war heshiya war iska iloowa dadkii waxaan sameyn jiray oo raggii waxaan sameyn jiray wadankan waa ka haajireen foorxumay kugu tahay walaalka mataqaana mid ku taag maanta group idinkoo wadan islaamid aad joogtaan wadan aan dhaqankiisa anaga waxba aan ka ogeyn hooyada maskiinta ah maalin walba ooynaysa war u daryeelo walaalka hadduu ku dilayna cafi anigana waxaa ugu dhiirida mataqaana maanta xanuunka waa dareemi kartaa laakiin waxaan rabaa inaan ku badbaadiyo malaayiinka mataqaana midiyaha isku haystaan Soomaaliyeed meel walba ay joogaan war heeda adigana xabsiga ha aadin anigana ha iga ilmaysinne naga dhiga midiyaha wabillahi tawfiiq janaasada waxaa lagu tukanayaa maalinta Sabtida taariikhdu ay tahay 12 bisha 10aad ee 2019 oo ah Sabtida lagu soo beegan hadii Ilaahay uu yiraahdo waxaana lagu tukanayaa janaasada masaajidka weyn ee Edmonton Angel ee Soomaalidu ay aad u taqaano isla mar ahaantaana waxaa lagu aasayaa marxuumka Allah u naxariisto hadii Alla uu yiraahdo Peace Garden oo si fiican u taqaanaan oo ku yaala bariga magaalada London waxaan jeclahay inuu mahad celiyo barnaamijkan duubay edit gareeyay qurxiyay isku hagaajiyay waqti badan geliyay walaalkay wariye Cabdiraxmaan Soomaali sidoo kale waxaan jeclahay inuu mahad celiyo liibaan jaamac oo si fiican u taqaanaan oo asagoo laftigiisu wadankan safar gaaban ku jooga walaalka marxuumka dhintayna ah
barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdixafiin maxamuud jaamac inta ay jirto dad soomaaliyeed oo diyaar u ah inay iscafiyaan dhibaatada kala gaartay hadday ahaan lahayd tan oo kale iyo tii dalkii ka jirtaba ay jiraan dad iscafinaya oo wanaag doonaya ruwaanda annaga ka fiicnaan doona dadkeena iyo dalkeena nabad bay noqon doonaan intaanu kaloo kale dib ugu kulmi doono waa cabdixafiin maxamuud jaamac oo leh gacmo wada jir bay wax ku gooyaan waa mahadsantii